بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. waxaan xalaqadii koobaad bisha bilowgeedii waxaan kaga hadalnay bishan barakaysan ee ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba oo ummadda muslimka oo khayra uu siiyey iyo jacaylka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo arkaanul islaamka salka iimaanku inuu shardi u yahay nabi moxamed iyo diinta uu keenay oo bishan soo degtay inaan wada jeclaano oo jacaylka haddii la waayana aysan diintii jiraynin, iimaankii inuusan jiraynin. xalaqadan maanta labaad waxaan kaga hadlaynaa, waxaan leenahay ciwaankeeda nabiga ma jeceshahay. runta marka la yidhaahdo bisha ramadaan iyo jacaylka nabiga wax isu keenayo waxaa weye bishan waxay tahay bisha qur-aanka uu soo degay, waa bishii barakaysnayd. qur-aanku bishan uu soo degay marka la leeyahay waxaa laga wadaa ilaahay hal mar buu qur-aanka soo dejiyey, samada ayaa lagu hayay 23 sano ayaa layna barayay nabigu calayhi salaatu wasalaam. maalin walba jabtarkii la rabo iyo intii la rabo iyo suuraddii la rabo iyo aayaadkii la rabo ayay 23kaas sano soo degaysay, si istabajoogeena usoo degaysay. dadka waxaa la barayay qur-aankaas inay xifdiyaan, waxaa la barayana inay ku dhaqmaan, waxaa la barayay inay dhaqankooda bedelaan. ramadaanku marka wuxuu salka yahay waxyaalaha ugu muhiimsan yuu salka yahay diinta. sababta waxaa weye waa bishii qur-aanku uu soo degay, waa bishii qur-aanku uu soo degay dhammaantii hal mar, waana rukni min arkaan alislaam, tiirarka shantaa mid ka mida weeye. arkaanta xoogga leh oo marka dhaqanka sida weyn u bedeli karta, dhaqanka xun buu ka mid yahay, dhaqanka fiicanna abuuri kartaa. qur-aanka marka bishaa la soo dejiyey muxuu yahay? qur-aankaas waxaa loogu talagalay, nabi maxamed baa loo soo dhiibay, waxaa loogu talagalay inuu inahago. sida ilaahay uu yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. qur-aankan waxaa ilaahay u soo dejiyey uu u jiraa oo loo keenay jidadka iyo nolosha iyo qaabka loo nool yahay sida ugu quruxsan inuu u haga ayaa loo soo dejiyey. hidaayada oo dhan ilaahay baa iskale, qur-aankan isagaa soo dejiyey, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa soo diray. saa daraaddeed waxaa weeye waxaa loo soo diray sidaas inuu noqdo, uu hogaamiyo jidka ugu wanaagsana laynagu toosiyo, nolosha u fiicanna laynagu toosiyo. sidaas ayaa qur-aankan loo soo dejiyey. nabigii qur-aankan inoo keena marka iyo innaga maxaa inaga dhexeeya? su-aashu waxaa weeye ma jeceshahay nabiga oo qur-aankan ilaahay iyo akhlaaqda fiican kuu keenay miyaad jeceshahay? jadban jawaabta ruux kastoo muslima haa ayay noqonaysaa. waxaa marka isweydiin leh, sidee loo jecel yahay nabiga? yani maxaa laga wadaa nabiga waan jecelahay, maxaa laga wadaa? taban ruux kasta wuxuu og yahay waxa uu jecel yahay, qalbigiisu taaban, caatifadiisa, siduu u hadli, siduu u soconaayo, ilaa dadka qaarkii socodkiisa ay ku dayanayaan, oo cuntada si ay cunayaan ay cunayaan, oo siduu u hadlayo. maxaa jira dadku markuu wax jeclaado waxaasi xoog leh ayay raad ugaga tagaan. saxaabatu rasuulilaahi marka raadkaas ayay kaga tagtay jacaylka nabigu calayhi salaatu wasalaam. mid ka mid a markii la qabtay oo la rabay in la dilo oo maka la geeyey saxaabadii ah ayaa waxaa la yidhi ma jeclaan lahayd meesha aad maanta adigu joogto inuu moxamed joogo oon meeshan ku dila adna aad nabad gasho, ma jeclaan lahayd baa lagu yidhi. intuu yaabe baa wuxuu yidhi wallaahi inay qodixi muddo ayaa iga dhib badan inaa aniga la idilo, waxaa ka fudud nabi moxamed hal qodaxa inay muddo ayaa igala culays badan buu yidhi. ilaa markaa mushrikiinta ay ka dhaheen weli dad sidaa u jecel mas-uulkooda iyo amiirkooda maanaan arag bay dhaheen. marka loo yimaada marka sideen u jeclaanaynaa? awalan waxaa la rabaa jacaylku kolkii mas-uul aad la shaqaynayso, madax markaad la shaqaynayso, ruuxaad jecesha markaad la shaqaynayso,
waxaa la hubaa waxaad isku dayaysaa inaad garato ruuxani wuxuu rabo iyo sida u fikiraayo iyo wuxuu kaa raba sida u qorsa in loo qabto si ama de laguu dalacsiiyo ama shaqadaada laguu daayo ama guryaha ay nabad galaan waa in ruuxa mas-uulka hawshiisa la fuliyo sidaa daraaddeed waxa ugu horeeya jacaylka calaamada u ihi waa maxay waa inaad fahamtid nabigu wuxuu la yimid iyo ilaahay wuxuu la yimid waa inaad garato macnaha uu leeyahay haddii marka macnihii aadan garanayn waxay la mid tahay ruux adiga ku xukuma oo kaa sarreeya oo shaqo kuu diraaya oo shaqadiisa aadan ogeynba adiga wax laga wado oo marka haddaa shaqo soo qabato shaqo qalad aad soo qabato dhibaata halkaa ka imaanaysa waxay la mid tahay marka taasi haddaan diinta la fahmin oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu rababa aadan garanin jacaylkaagu run maaha haddii aadan garanin meesha u socdo iyo danta uu leeyahay jacaylkaagu run maaha haddii aadan ku dhaqmin wixii amarka laguu siiyey oo qur-aankan u soo degay nabi maxamed mana jeclid mana rumaysnid sidaas ayaa laga wadaa waxaa sii dheer intaas hawl kastood ruux aad jeceshahay aad la qabanayso ama uu kuu diray qalbigaad siinaysaa waa isjeclaysiinaysaa waad ku celcelinaysaa waxa diinta ilaahay ikhlaaska ay ka wado waa sidaas way yani markaa hawl qabanayso hawshaa danta aad ka leedahay dan la yaqaano waa inay tahay waa inaad og tahay si lilaahi oo sida ugu sarraysa inaad u qabato haddii markaa aadan si sax u qabanaynin oodan fahmin ama aadan ku dhaqmin ama ayna kaa lilaahi hawshan ahayn hawshaasi way fashilaysaa mana guulaysanayso adiguna guuldarro ayaad noloshaada ku dhammaysanaysaa nabi maxamed calayhi salaam jacaylkiisu marka wuxuu ka dhigan yahay bishan sharafta leh qur-aanka la soo dejiyeyna ay keenaysaa inaan wax wadan bedelno oon bal isku dayno inaan nabiga ku dayan karno waan ka sheekayn doonaa insha allah siduu u soomi jiray iyo soomka siduu ahaa iyo cibaadada way inoo imaan doontaa laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa horta nabi maxamed in raadkiisii aad raacdo haddaadan raadkiisa raacin dhib weyn waaye wuxuu ku amray haddaadan fulinin dhib weyn weeye sidaas daraaddeed ayaa nabi maxamed waxaa amar lagu siiyey uu ilaahay amar ku siiyey waxaad ku tidhaahdaa baa layidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuurun raxiim haddaad ilaahayba jeceshihiin oo diinkiisa jeceshihiin ani waxaan idhaahdo raaca maxaa jira ilaahay waxa inooga tarjamaya oo warkiisa ina baraaya waa nabi maxamed nabi maxamed markaa jeceshaha marka wixii alle u soo dhiibay oo dhanna waa inaad qaadatid iimaanka marka wuxuu keenayaa inaad wax walba isaga ka jeceshaha buu keenayaa sidaa daraaddeed sida loo jeclaanayo waa sidaas oo kale xikam waxaa jirta ah ruux wuxuu jecel yahay ayuu xusuusteeda iyo hadalhaynteeda badiyaa kolkii aad gabadh iyo wiil isguursanayaan maanta oo dhan waxaa laga sheekaynayaa mustaqbalkooda guurkooda noloshooda saasaa laga sheekaynayaa maama aad jeceshahay ood muddo isa soo noolada markaad joogtaan noloshiinnii hore iyo tamaanta la joogo ayaa maanta laga sheekaynayaa markaad macallin tahay arda fiican aad la joogto darsiga aad bixinayso darsigaasaad jeceshahay marka maanta oo dhan waxaad ugu celcelinaysaa waxaad adigu jeceshahay ugu celinaysaa dowladuhu waa saasoo kale guryuhu waa saasoo kale noloshu waa saasoo kale nabi maxamed jacaylkiisa qayb ka mid waa maxay waa inaad daa'iman allahuma salli wasallim wabaarik waa inaad daa'iman ku celceliso oo daa'iman hadalhayntiisa aad badiso ood ilaahayna ka barido inaad la kulanto maxaa jira ruuxa aad jeceshahay waxaad aad u jeceshahay inaad markasta la kulanto muddo dheer markaa u kala maqantiin aad jeceshahay ayaa waxaad u soo hiloobaysaa inaad la kulanto ayaa jeceshahay nabiga in lagu salliya jacaylkiisa qayb ka mida weeye siduu u tukan jiray in waa qayb ka mid ah in hadalhaynta labada waa qayb ka mid ah in siiradiisa la barta waa qayb ka mid ah jacaylkiisana waxa ugu weyn inaad barato sida aad diintan ilaahay ugu dhaqmi lahayd ood u hirgelin lahayd inaad barato waxaan ku soo khatimaynaa aayadda qur-aanka ah oo ilaahay uu isku dhaaranayo si loo ogaado haddii diintan aan si saxa loogu dhaqmin oo disoorka ilaahay uu keenay si sax aan loogu dhaqmin inaynaan guulaysanaynin islaamkeennuna una saxayn iimaankeenuna una saxayn ilaahay isagaa isku dhaarta khalqigiisana uu ku dhaartaa
سادرات بآيات القرآن كوحول إلهي عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وحلا يابلواي إلهي وحكو دارنا يا النبي وأشيغيا هدي وح الله وحي دن أي شان مسلمين تو أي أدي كلسو آدي وايان أو القرآن كأي سنة دي سلسو آدي وايان أو حكم كودا يدستور كود وكان نقوم وايو مسلمين ما هي أغو بالي كمر رميسنة أغو بالي وحال إن ليه هاي هدايدان دنيهينا iyo doodihiina iyo khilaafaadkiina iyo mashaakilka idin xmaraya iyo marka istishaan iyo marka isguursanaysaan iyo marka isdhaxlaysaan iyo marka wax baranaysaan iyo marka dawlad madax noqotaan intaba hadaydaan la soo aadin kitaabka Ilaahay iyo sunnadiisa hadaydaan la soo aadin oo dariiqii nabigu falay ah mar rumaysnidin nabi Muhammad iyo Ilaahay waxa laga rabaa carabkana ha in la yiraahdo hatta yuhakkimuka fiima shajara baynahum wa arinta dhaxmaraysa mashaakilka ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإن هبيرات حكم كاس أذيك إلهي حكم كيسة وين حالك النقطة أذيك وهذيك تأنا محكمة تكتور أول لقول هذا دين إلهي سنك وحكمتي وين أقبشد ورهالك النقطة قلبك أنا سيسو أيضا قلبك أنا إسحمينين وهذيك كرتمرك قاركود إنه قاضي ظلم السمايو لكن مربى هديك كتابك إلهي يسنة اللي اعتماده waxaa la oo umada ay saa ku heshiiso distoorka waxaa la rabaa dhammaan in la wada ilaaliyo oo la khilaafin oo isaga marka xugun uu la yimaado in la yeelo dawladaha hormarina adduunka dasaatiirtooda ilaaliyaan qoyska guuleystana waxay ku heshiyaan gabadhii wiilku markay isguursanayaan ay ku heshiyaan si u dhaqmi lahaayeen waa distoorka guriga waxaasoo dhan waxaa keenaya jacayl ruuxii wax jecel waxaas uu ilaalinayaa ruuxa uu jecel yahayna wuxuu rabo uu ilaalinayaa nabi maxamed iyo ilaahayna way isku xidhan yihiin saadaraade salawaatullaahi wa salaamu calayhi waxaa laga rabaa culimada ilaahay gababay ku ammaantay waxaan lagu ammaanin nabiga ma jiro kitaab baa laga qoray gabay baa lagu ammaanay waa loo heesay wax aan lagu ammaanin ma jiro saadaraade waa ku faraxsanahay markii maamooyinkeenu ay noogu heesi jireen nabiga jacaylkiisa ay buraanburka ka tirin jireen aad iyo aad bay qiimo u lahayd laakiin maanta waxaad moodaa dadku fiiri wixii oo inta la yareystay ayaa laga tagay nabiga ma jeceshahay waa haa seedu jeceshahay waxa uu nabigu la yimid baan ku soconayaa haddii waxaan la imaanina ilaahay dhaartiisa ayaa meeshii ku taala falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakkimuuka fiima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قرآن كإلهينا وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم جدك أغطو سنبو إذن كوها غيا هذا يلسننا أو هيريسننا أيا ليلي بشر رمضان بركة إذا وحان رجينينا وحبضا أو رقم ماذا نيهور إنا يخرمها إنا بدلو لما أنتنا أن اسكو بورينو أنا كان أن اسكو بوري إذن كان أن اسكو بورينو لما أنا وحان أمهد علنيا انت دادك اشيكتا وحسن كونا دقنتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته